What's up guys, waa macallinkiinii Maxamed Cali Faarax. Had iyo jeer marka ardaydu accounting-ka ay baranayso, waxa ugu adag ee ay la kulmaan ee dhibka badani ka gaaraa waxa weeye sidii ay transaction u record garayn lahaayeen. Dhibaatadana waxa u aabba ah oo had iyo jeer ardaydu aanay aad u kala fahmin debitka iyo creditka. yacni account-keebaa debit tegaya, keebaa credit tegaya. casharkan waxaan gacanta idinka gelinayaa sirta debitka iyo creditku ay leeyihiin, yacni sidii aan anigu u fahmay ee aan u bartay markaan accounting-ka dhiganayay ayaan idin baraya. casharkani wuxuu ku xidhan yahay casharkii ka horreeyey ee accounting equation-ka aynu kusoo qaadanay. marka haddaan casharkaa hore soo daawan, kii hore ku noqo. okay, aynu ku bilowno. maxay yihiin debit ama credit? maxay yihiin definition-kooda ugu horeeya? debit iyo credit wax kale maaha, waa left side entry iyo right side entry. oo maxaan uga jeedaa? bal ka soo qaad sawirkan aad halkan ku arkaysaan. waxa weeye waa qof sii jeeda. tusaale ahaan maaha qof soo jeeda, laakiin waa qof sii jeeda. waa adoo sii jeesta oo labada gacmood kala bixiya. okay, markaa gacantani waa bidixdiisii, gacantanna waa midigtiisii. hadda jeer marka accounting-ka recording-keeda aynu sameynno, waxaynu ku sameynaa account yar oo sidan u eeg oo magaciisa la yidhaahdo t account. t account waxaa loogu bixiyay waayo xarafka t ayuu eegi. markaaynu kusoo noqono, debit iyo credit maxay yihiin? debit iyo credit wax kale maaha, wax kasta oo dhinacan bidixda lagu record gareeyo ayaa waxaa la dhahaa debit ama debit entry. wax kasta oo dhinacan midigta lagu record gareeyana waxaa la dhahaa credit ama credit entry. markaa debit iyo credit wax kale maaha ee waa bidix iyo midig, labadaa entry ee midna bidix lagu record gareeyey, midna midig lagu record gareeyey. okay, intayna waa fahnay. waa aynu fahnay in debit iyo creditku aanay wax kala ahayn ee ay yihiin wixii bidixdaa lagu record gareeyana ay credit yihiin, wixii bidixdaa lagu record gareeyana ay debit yihiin, wixii midigta lagu record gareeyana ay credit yihiin. okay, intaa markaynu fahnay, mar haddaynu nidhi wixii bidixda lagu record gareeyaa waa debit, waxaan leenahay debit waxay la mid tahay waa bidix, wixii midigta lagu record gareeyaana waa credit. okay, midig waxay la mid tahay markaa credit bay la mid tahay. yani line-ka wixii xaggan ka xiga ee midigtaahi waa credit, wixii bidixda ka xigaana waa debit. intaa markaynu fahnay, accounting equation-keennii aynu eegno. accounting equation-keenni waxay ahayd assets equal liabilities plus amortization. markaad sidaa u eegto, assets-keenni waxay xigaan bidix. lagu record gareeya maxaa la odhan jiray? debit. asset-keenni maadaama ay bidixda xigaan, asset-keenni waxay imanayaan debitka ayay imanayaan. oo macnaheedu waxa weeye assets oo dhan caadiyan wuxuu leeyahay debit balance buu leeyahay. asset-keenni wuxuu la mid ahaa liability plus amortization. liability iyo amortization line-keennii ama equation xaggan midigtay ka xigaan. marka iyagu halkay imanayaan? dhinacan ayay imanayaan. dhinacan ay yimaadeen waa xaggee? waa xaggii midigta ama waa creditkii. taa macnaheedu waa maxay? liability-ga iyo amortization caadiyan waxay leeyihiin credit balance bay leeyihiin. caadiyan maxay leeyihiin? credit balance bay leeyihiin. intaa markaad fahantay, bal aynu eegno. wixii bidixda ahay xaggan ay u kordhayaan, wixii midigtahayna xaggan ay u kordhayaan. markaa shape-ka dhexdiisa waa kan t account-ka. wixii xaggan uga baxsana waa increase, wixii xaggan uga baxsana waxa weeye waa increase. labaduba waa increase. taa macnaheedu ma ahay? bal t account-keena aynu soo qaadano. taa macnaheedu waxa weeye assets-kani xaggan ay u kordhayaan, xagga debitka. liability-ga iyo equity-guna xaggan midigtay u kordhayaan oo xagga creditka. si kale aanu idhaahno, asset accounts-ku waxay u kordhaan debitka, liability iyo amortization-kuna waxay u kordhaan creditka. midna wixii xaggan midigta ku jira waxay u kordhayaan xaggan midigta, wixii bidixda ku jiraan waxay u kordhayaan xaggan bidixda. haddaynu t account-keennii ku tusno, assets-ku xaggan ugu kordhaya, liability iyo amortization-kuna xaggan ay u kordhayaan.
يعني kuwana bidixday u kordhayaan kuwana midigtay u kordhayaan. Okay, laba error kale aynu samaysano halkan waxa weeye waa decrease. Assetska haddii laga tago oo xaggan loo socdo midigta waxaa ku dhacaya decrease. haddii liability iyo equity-ga laga tago oo xaggan bidixda loo socdona iyagana waxaa ku dhacaya decrease. mid walba jihada ka baxsani waa increase, jihadan gudahuna mid walba maxay u tahay decrease bay u tahay. taa macnaheedu waa maxay? asset accountsku waxay u yaraadaan creditka, liability-ga ama equity-guna waxay u yaraadaan debitka oo ay opposite bay isku yihiin. marka haddaynu tii account-keeni aynu ku muujino assetskii waxay u yaraanayaan midigta halkaanay u kordhi jireen bidixda. kuwii midigta u kordhi jiray oo ah liability iyo ownership equity-giina waxay u yaraanayaan xaggan bidixda u yaraanayaan. oo kuwani markay bidixda u socdaan bay yaraanayaan, markay midigta u socdaanna way badanayaan. kuwana markay midigta u socdaan bay yaraanayaan, markay bidixda u socdaanna way kordhayaan. waxa weeye debitka iyo creditka gebigooda waa sirta ka dambaysa waa intaa weeyaan. casharka xiga waxaanu ka eegi doonaa bal sida transaction marka uu dhaco uu saameynta ugu yeelanayo debitkii iyo creditkii. waxaan filayaa casharkan inaad ka faa'iidaysatay. thanks for watching. please haddaad casharkan jeclaatay like garee channelkaygana subscribe garee.